habartii indhalaan ma ku ogeydo haabuud dad cunnoy ku darsatay waxyaabo badan oo aynu ugu dulqaadanayna baa jira hadda laakiin waxay ku darsatay inay wixii inoo ahaa gumarada intay ku tumato weliba ku indhacada soomaaliya lamaba hadlayna bay yidhahdeen haddana waxay yidhahdeen soomaaliya qayb ka mid a ayaanu heshiis la gelaynaa idinku iswaafajiya dowlad waa dowladdii ugu beenta badnayd dowlado intaynu soo arkayn waa tii ugu beenta badnayd nimankaa waxaa helay wasiir abgura oo gungumo ah oo jabhada oo soo caddaaday oo soo madoobaaday oo la yidhaha wasiir juxa ilaa s d f t soo xabad ridanayay innaguna waxaan u diray inamadii raaciyaan maamada ayuu ka marsaday isagoo qoslaya oo leh war waxay noo soo direen waa maxay ilaahay caruur lacag sida iyo carab ma noo keen ayuu ku geeraaday wasiir duur odhan maayo waad muuse cabdallaysay ku odhan maayee walaa takun lilkhaa'iniina khasiima ninku inuu adeerkii haddii lasoo hadduu adeerkii diinta caayo hadduu yidhaahdo waa shahaadanay dee waa wax xun aaniguma khudbadiyey wuxuu yidhi horta sheekh hebil diinta maaliga intay khusaysunbuu ka yaqaanaa buudi maxamed idris abti waan kun ina soomaaliyadaa ku dhashay dee meeshii aad ka timi eritrea la odhan jirayna meel diin uga baahi badan la garan maayo soomaalida dhex u noqon maalin dhowto qoraal ayaa baraha bulshada aad ku baahisay aada leedahay madaxweyneha fariin ugu dirayso aad u dhigan madaxweyne dayntii waad ku dayay wasiiro xula ayay u baahan tahay shacabku mar arrintaa aada u faahfaahay halkan iska daba xadhiga ka soo jaray maxaa kaa galay imise wasiir baa israacay oo xadhiga ka soo jaray muxuu ahaye meeshii la odhan jiray jigjiga hudheer nin ka furtay maxaa ka khuseeya maayarka jigjiga haddii xadhiga ka jaray waqti wacan oo wanaagsan daawadayaal hal idin ahaantii baa meel kasta aad ka joogtaan carriga soomaalida iyo caalamka intiisa kaleba halkan waa xarunta telefishka sahan uu ku leeyahay magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer stuudiyaha telefishka sahan maanta waxaa marti ah oo ila jooga maxamed yuusuf cabdiraxmaan muraad duqii hore ee degmada burco ahna siyaasi weyn oo aad wada garanaysaan kana mid ah guddida fulinta xisbiga kulmiye maxamed muraad oo mid ka mid ah shakhsiyaadka bulshada jamhuuriyadda somalilan sida habsamida ugu soo shaqeeyey hogaaminteeda iyo horumarkeedaba qayb lixadle ka ahaa ilaa iyo halgankeedii maanta wuxuu ku sugan yahay telefishka sahan gudoomiyaha waxaan wax ka weydiin doonaa bal xaaladda guud ee waddanka jirta xaaladda abaareed khilaafaadka xisbiga kulmiye xukuumadda iyo weliba sidoo kale qoraallo ama faallooyin maalmihii u dambeeyey baraha bulshada si weyn loogu qaadaadhigay oo guddoomiyuhu uu baraha bulshada ula wadaagay maxamed yuusuf cabdiraxmaan muraad waxaan kugu soo dhaweynaya telefishka sahan waxaad ka mid tahay shakhsiyaadka sida weyn ugu xidhan telefishka sahan aada iyo aad baan kaaga mahadnaqaynaa soo dhowow dhawaay aad iyo aadna umahadsanti adiga iyo dhallinyaradan waxay naga duubaysaa guddoomiye aada baad mahadsan tahay maanta xarunta telefishka sahan baad ku sugan tahay bal guud ahaan waxaad warinoo sido iyo xaaladda waddanka iyo siyaasadda jamhuuriyadda somalilan kusoo dhawow adigoo la faguraya marka hore aan aydiinimiyo bal waxa waaqaca taagan baan doonayaa siyaasiyan iyo qaanuuniyan inaan isgarab dhigo labadaba oo aan ka hadlo wixii ugu dambeeyey somalilan ka taagan waxaa su-aala iga weydiin doontaan idinka idiinta allah taban laakiin horta anugu bal safarka wixii aan siday aan ka warramo la wadaag horta marka hore waxaan magacay wanaagsan sidaas sheegtay trinko waa maxamed yuusuf cabdiraxmaan dadku intaa ma yaqaanin laakiin dadku laba magac bay yaqaanin inta badan maxamed muraad waa la yidhaahdaa oo dadka fahmus baan ku ah maayer muraadna iyo isagana caan baan ku ah nin buraca ku dhasho intaa ku leekaaday ku soo bartay 9 sano dhowdhow soo xukumayey aan isleeyahay nidaamka dawladeed iyo kan degmada iyo gobolka maanta ee somalilan wax weyn igama qarsoon aqoontaydu waa PhD ashariica walqaanuun waan ka qaatay 2021 kulliyadda shariica walqaanuun oo ah kulliyad ka tirsan jaamacad ku taala maraykanka Minnesota oo la yidhaahdo Islamic University in Minnesota jaamacaddaasaan ka qaatay PhD sharciga iyo qaanuunka 2021
bal markaa qaanuuniyan waxa maanta arlada ka soconayo laysku hayo waa dastuur jabinaya maaha shirkii ugu dambeeyey ee somalilan iyo somalilan kale ay wada galeen waa yaab somalilan iyo haddana somalilan wuxuu yidhi habartii indhalaan maku ogeydo haabuud dad cunnoy ku darsatay buui dowladdeenu gaabis iyo muxuu ahaayey laysinimo waxyaabo badan oo aynu ugu dulqaadanayna baa jira hadda laakiin waxay ku darsatay inay wixii inoo ahaa gumarada intay ku tumato weliba ku indhacadda haddaan hoos u daadego heshiiskan lagu sheegay heshiis puntland iyo somalilan ka dhexeeya horta qaanuuniyan maaha heshiis puntland iyo somalilan ka dhexeeya waa heshiis laba qaybood oo somalilanna ka wada dhexeeya haddaynu heshiisba ku sheegno sharciyan wa qaanuunan hadaynu ku sheegno heshiisba waa heshiis laba kooxood oo reer somalilan ka dhexeeya markaan qaawino cidda wax saxeexaysay waa niman warsangeliya warsangeli waa ayo dhulka laga wada hadlayaana waa dhulka taariikhiyan ama xag xuduud ahaan dowladda somalilan iyadu ay 100% aaminsan tahay inuu yahay dhulkeeda ay xukunto taa markan ka tago waxyaabaha ay jebisay intaanaan u gelin anugu 3 qodob baan ka hadli doonaayo qodobka iminkaan dii taaganahay waxaan kaloo ka hadli doonaa abaaraha waddanka ka taagan iyo dowladdeenu sidaana warba ogahay iyo waxa dadkeennii haysta khaasatan degmada Burco la yidhaahdo waxaan ka hadli doonaa wadaadada reer koonfureedka ama Kenya ha joogeen ama Muqdisho ha joogeen ama Puntland ha joogeen oo had iyo jeer Hargeysa iyo Somaliland aad ugu dhiiray haddii wax ka dhacaan koonfur Soomaaliya wax ka dhacaan ama Puntland wax ka dhacaan aad moodeen aan xil diimeed ka saareen qolyahaani waan baraarujin doonaa iyagana 3 qodob baan ka hadlay heshiiskan dowladda Somaliland ay gashay intaanaan u gelin waxaa la isku haystaa jamhuuriyadda Somaliland iyo dowladda Somaliland innaga waxaa la yidhaahdaa jamhuuriyadda Somaliland dowladda Somaliland inama yidhaahdo waayo qaanuunka inoogu taala dastuurka ku taala qodobka 1 iyo 2 iyo 4 saddexdaa qodob dowladdu way jebisay cid allaale cidii debate ka gelisana diyaar baanu nahay bil iyo 2 iyo 3 baanu siinayna soo diyaar garooba ha iska hadlinay sukan keena waynu ka doodayna saddexdaa qodob bayna jebisay ka aynu ka hadalnaa waa kan aynu disturb nidhaahno oo aynu dhahan dadku u dhaxeeya waynu isku ognahay 130 iyo wax la midoobay kaasoo aynu isla akhriyayna dowladdu ma jebisay mise may jebin waa la istaabsiinaya taas waa taa dowlad maxaa la yidhaha qaanuuniyan marka la joogo bahda siyaasadda ama luqadaha dowlad waxaa la yidhaha kayaan siyaasi waxay yidhahaan waa kayaan siyaasi dowladii ama majmuucatu min alafraad baa la yidhaha waa bulsho isu tagtay oo yumaarisuuna nashaatahum marka weliba dowladnimadooda iyo nashaadkooda iyo waxooda maaragtay dee ka shaqaynaya baa la yidhahdaa xaggay ku shaqaynayaan calaa iqliim oo juqraafi xagga juqraafiga marka tog dheer oo kale Somaliland oo kale iqliim la yaqaano juqraafi dad ku shaqaynayo nashaadkoodii iyo waxoodii active uu soconayo baa dowlad la yidhaahdaa kelimaduna aslan waa kelimad carabiya ah nidaam siyaasi oo mucayan oo la yaqaano ku shaqaynaya taas waa taa waa dowlad jamhuuriyad maxaa la yidhaahdaa jamhuuriyad afka qaanuunka markaan ku hadlayno waxa asalkeedu waa kelima laatiiniya waa kelimad sadcaal inoogu timi oo laatiiniya oo maxay sheegaysaa wa tucnaa bihaa sha'an caan baa looga jeeda umuuraha guud baa looga jeeda marka la macnaynayana waa nidaam xukmi baa layidhi oo taquumu fiihi asulda alculyaa taas baa lagu sheegaa waxaana ishaaraysaa baa la yidhaahdaa waxaana u asaasa baa la yidhi oo asaaskeeda calaa asaasin lishacb iyo mumathiliintiisa muntakhibaadka ah
waxaa marka jamhuuriyad la yidhaahdo waxaad garanaysaa meeshaasi inay tahay aanay ahayn muxuu ahaye jamhuuriyad dhexaltooya aan ahayn mid ka caan qabsadiisii kii siyaad barre oo kale ee ay tahay ummad meel isugu timi oo isdooratay oo madaxweyne la doortay leh ama shacabku ha soo doorto ama baarlamaan ha doorto kaas baa jamhuuriyad la yidhaahdo taynuu ku sifaysannahay taa weeye waxay inshaaraysaa baa layidhi ilaa dawla oo yakuunu fiiha alxukmu dadka shicibkaay iyagu marba wixii ay maaratay ciddii dooranaya gacanta ugu jirto taas baa la yidhaha waraaso aanay ahayn qalabana aanay ahayn waraasadii qalabadu waa in dee militarigu maanta ayna qabsado oo kale ama cid kale ayna qabsato oo kale aqlabiyadaan ujeeda waraasaduna boqor fahad oo kale ibn cabdilcaziiz m b s ka iyo waa kuwa imaaraadka iyo intaa markaynu ka nimaadno isla garanno in dawlad wax la yidhaahdo aynu now ka weynahay markaa la doonayo kee wax lagu qoraya waraaqaha heshiiska ma dawlatu somalilan baa lagu qoraya mise jamhuuriyadda somalilan dastuurkeena waxaa ku qoran jamhuuriyadda somalilan waxaana ay ku sheegtay dawladdeenu ay ku sheegtay heshiiska ee ay ku qortay dawladda somalilan waxa weeye waa dastuur jebin caddaana 100% macnaheeduna waxa weeye darajadeeni inay hoosaan uga soo dhacnay oo la maqaam noqonay puntland jubbaland galmudug hirshabeelle koonfur galbeed kuwaan la maqaam noqonay oo kuwaas markay heshiinayaan waxaa la dawladda hiblaayo dawlad goboleedka hiblaayo dastuurka waxay jebisay 1 iyo 2 iyo 4 qodobka afraad xaguu ka soo geliyay uu jebinaysaa waxa uu ka soo geliyay say u jebisay waxa weeye jinsiyaddu ka hadlaya ninka heshiiska somalilan ay leedahay wuu nala galay waa nin warsangeli jinsiyadiisu 1960 juun dadkii jamhuuriyadda ku hoos jiray ayaa muwaadin la yidhaahdaa oo dastuurku saas u qoray wixii ka dambeeyey may ee meel kale ka yimi muwaadiniin maaha warsangeli miyaanu maalintaa ku jirin dadkii deganaa somalilan miyaanu ku jirin jinsiyadiisiibay si dhaaragti ah ay wasiiradaas iyo ciidankaa loo diray jinsiyaddii warsangeli inuu ka mid yahay somalilan ayay meesha ka saareen maadaama ay heshiis dhuleed iyo mid siyaasiya labadaba la galeen waxaa kaloo yaab nagu reebtay taariikhdu markay ahayd 1 bishii abril 16 2025 waa fadhigii 16aad ee wasiirada waxay ku go'aansadeen Soomaaliya inaanay la hadlaynin bay ku go'aansadeen su-aasha shicibka Somaliland iyo dadka caqliga leh aan u soo bandhigaya waxa weeye war wasiiradeenu ma beenaalayaalba oo iska hadlayay mise Puntland ay maanta la fadhiisteen iyo Somaliland isku jira ee heshiiska la saxeexatay ayaan ka tirsanayn Soomaaliya ka tirsanayn taas waxaan uga jeedaa dawladdeenu wax kasta oo aanay garanayn ama wax kasta oo aanay hubsanin way iskaga hadashay waa bishii abril 16 2025 waxa weeye muxuu ahaayey kalfadhigii 16aad ee golaha wasiirada Soomaaliya lamaba hadlaynin bay haddana waxay yidhahdeen Soomaaliya qayb ka mid ah ayaan heshiis la gelaynaa idinku iswaafajiya dawladay iswaafaji halkaasaan kaga tegay waxaan odhanayaa dawladdu waa dawladdii ugu beenta badneed dawlado intaynu soo arkayn waa tii ugu beenta badneed waxaanu kala odhanaynaa waa tii ugu ayaanka daray heshiiskan waxa ay ku sugtay dawladdeenu xuduud qabiilooyinka iyo xuduudo kala samaysay oo warsangeli markay maanta heshiis la gashay warsangeli inuu xuduud leeyahay aan Somaliland ahayn bay iyay sugtay ay cidii heshiiska la gashay waa Somaliland ee maaha Puntland maaha nimankaa waxaa helay wasiir abgura oo gungume oo jabhada oo soo cadaaday oo soo madoobaaday oo la yidhaha wasiir juxa ilaa SSDFT soo xabad ridanay innaguna waxaan u diray inamadii raaciyaan maamada ayaynu diray oo ka marsaday wixii doonay afku gashaday
waxaas aynu aragnay ummaddii la yaaban tahay waxaa soomaaliya ku hadlaba caawo la yaaban yihiin ayuu ka marsaday isagoo qoslaya oo leh war waxay noo soo direen waa maxay ilaahay carruur lacag sida iyo carab ma noo keen ayuu ku geeraaray cabdiraxmaan ciro waa nin iska weyno iska waaye aamin miskiina sida runtii wax badan baa laakiin la hoos marinaya waktiyadii axmed maxamed maxamuud siilaan ilaahay raalliha ka noqdee uu kursigaa uu maanta ku fadhiyey ayuu maalin khudbaday wuxuu yidhi siilaanyo weyn maxkamad la saaraa wuxuu ku kacay alkhiyaanatu alcudmaa uu ku celceliyey 3 jeer wuxuu ku kacay alkhiyaanatu alcudmaa cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi doctor ciro waxaan ku leeyay madaxweyne tan baa alkhiyaanatu alcudmaaya haddaad somalilan dan ka leedahay wasiiradan udub cadda ah ee gungumayaashii abrisida afka uga geliyay dabadeedna afka la gashanayo waxa ay kuu soo saxeexeen ee somalilan ku sheegeen inay la gashay puntland waxaas baa wuxuu yahay alkhiyaanatu alcudma waxaan halkan aad uga xuma wasiir duur habti duurow wasiirkaygiina waa lahayd oo muddo badan baad xukumaysa markan meerka aadna wasiirka arrimaha gudaha aadahay anigu waxaan ku aqaanaa ama bulshada somalilan bay kaaga marakacaysa nin siyaasiya 25 sano ugu dambeeyay siyaasadda ka muuqanayay aqoon leh khibrad leh ku dhacaya raganimo leh laakiin maanta ku odhan maayo waad muuse cabdallaysay ku odhan maayee maanta way kaa hoostay abtii kelmaddan ku odhanaya keliya waxa weeye walaa takun lilkhaa'iniina khasiiman intaasaan kaaga tegay awguruuji hawarwadaagii ama inaabtigay waan idhaah waa garsoore waa qaanuun yaqaan doctor cabdiweli suufi ayuu qoorta iskaga duub xildhibaan adiga taadu waa aabbahay goblan ma aha tii qaanuunkana maaha tii siyaasigana maaha taadu waa aabbahay goblan yo gar iyo gardarraba adeerkay baan garab taaganah cabdiraxmaan ciro taadu waa taa waa kugu garaabaynaa dee ninku inuu adeerkii hadduu adeerkii diinta caayo hadduu yidhaahdo waa shahaadanay dee waa wax xun laakiin soomaalidu iyo qabyaaladeedu halkaa waa gaari jirtay adigana waxaan ku leenahay taadaa ma inay xun tahay mise inaanaan kugula yaabaynin dee markaad goobo horoo badanna aad safka ku jirtay taa waxba kugula yaabi mayno abarwadaagii halkaasaan kaga tegaya dowladda somalilaney dowladnimadu waa dal iyo dad iyo wax soo raaco aan buuray almuhim waa dal iyo dad gobolkan togdheer aanu joogno khaasatan meesha la yidhaahdo degmada burco dadkii idiin joogay way liitaan halkaan caawa ka hadlaya waa gobolkii togdheer degmadii burco halkaa ilaa xodeeye iyo muhollin iyo wixii beri ka xigay iyo balle haleelo ilaa burco ilaa laamiga wixii xaggan ka xiga qoryaale iyo shanshacde wixii xaggan ka xiga ilaa wixii hawd ka xiga ilaa wixii waqooyi ka soo xiga waa abaar dadkii xoolana laga iibsan maayo oo xoolaha lagama iibsado imika abaar aan caadi ahaynna way ka jirtaa caawa waxaan ku jirnaa 7 bishii 10aad dayrtii baynu ku jirnaa markay ugu xooga badnayd weli roob kama diin suux yaryar iyo hogar meel biyo dhigtay kuma darin weli roob kama diin dowladeed haddaad warka haysiiyo haddii kaleba dadkaaga haddaad dan ka leedahay gurmad bay kaaga baahan yihin wasaaraddii deegaanka meelahanay marmaraysa waxaan waxba ka dawaahayn iyo meel baanu oodaan gubnay waxaan waxba ka dawaahayn ayay ka sheekeynaysa waxoogaa meela mar kafe ka cabeene hudheeladaa hilib ka dalbadeen intaasay ugu ekay halka taasina ilaahay hortiisana aday ku sugaysa doctor cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro aday ku taalla ku sugaysa waa dadkii kusoo doortay waa dadka yaaban ee war maxaynu dooranay awal
waa dadka aan dawladdu waxba ku celin, waa dadka aan xitaa odhan raalli waanu ka xunna waxa idinku dhacay. saxaafaddana waxaan leeyahay war waa dadkiinniye u tago oo waxba kama noolee soo duuba dhibaataday ku nool yihiin, saxariirka ay qabaan. dawladdeediina dawladdeeda sugayeenna waxay kharash ku bixinaysaa inay warsangeli heshiis la gasho oo tidhaahdo puntland ayaanu heshiis wanaagsan oo muxuu ahaaye xagga dhaqaalaha oo xagga kan waa beentiin. ummadda aliga waanu isu furaynaa wallahi inaydan kala footo ka celin karayn. iska daacid kala footada wata barabogaska wata ee ka dhex qayliya macalin kala footo wallahi inaydan kaa kicin karin hala goynin. taana halkaasaan kaga tegay. dadka masaakiinta ah ee lagu khamaariyay dawladdu ay footballka ku ciyaarayso deegaamada ilaa sanaad dusha ilaa iyo meesha la yidhaahdo coodanle, dawladdu ma meel cidhiidhiyun baa ugu jiraysa. hadday warsangeli iyo puntland iyo majeerteniya ay maanta dhaqaale ka furanayso iyo meel laga baaxbisareeyo ka furanayso, idinku maxabadun baa hortaagnaanaysa. waxaan se isweydiiyaa iyaguna hadday halkaa maraan reer coodanle iyo qorolugud iyo oog iyo boqdharkeyn iyo nimankaasi balle cumar iyo wixii ka bareeyey halkaa iyo muxuu ahaa banankii hadday halkaa maraan oo firdhiye u tagaan oo heshiiskan oo kale la soo qaytaan, qaanuunka qabanaya muxuu yahay? haddii dawladdii ba aan qaanuun qabanayn ayaga qaanuunka taloo qaban doonaa muxuu yahay haddii sidaas sameeyaan? waxay ila tahay miskiin baa miske la fuulo leh. taasay noqonaysaa iyaga jeelka laga buuxinaya hadday sooba hadal qaadaanba. waa sida loo kala adag yahay, waxaa loo kala adag yahay sida loo kala jilicsan yahay. maalmahan waxaynu arkaynay baarlamaankii soomaaliya inantii la odhan jiray sacdiye frimbi ee fiicneed fariidahay oo le hala gaaloobo iyo haddii la gaalada lagu dhawaado maxaa ka leedi oo qaanuun dawladdii soomaaliya ay qaanuun baasgaraysay. qaanuunkaas muxuu sheegay? waxa weeye xuriyat ddiin, xuriyat damiir, xuriyat lfikri. that means qofku wuxuu qaadan karaa kristaan, wuxuu qaadan karaa buddhism, wuxuu qaadan karaa ti yahuudda, tuudoonu qaadan karaa, lalama hadli karo. dhalinyaradu iyo caruurtu 70% wey iyo in ka badan. haddii ilmi yaro la ikhtiyaar buu leeyahy oo maanta kaa qaanuunkaa loo qoray berito hadduu yidhahdo anu kristaan baana nacuudu billahi min maxaa wax lagaga qaban karaya? sharci wax ka qabanaya ma jiro. sidaa markay tahay wadaaddo shalahoo aan saaxiiba nahay badidooda qaarna dee waalid bay yihiin yaan halkan ka magacaabay. waxaan ugu horraysiinaya sheekh maxamed cabdi omaliyo iyo sheekh shibli oo culimo geeska africa laga aqoonsan yahay. sida runtiiyana ragga aan culimonimada u aqoonsanahay ku jira, haddaan la odhan waa foolaadka ama qoliharaadka. labadaas sheekh waxaan leeyahay bixtiraam. haddii wax yar somaliland ka dhacaan ma adkaysan karaysaa. hadday tahay wax jiriyo haddaanay wax jirinba aanay ahayn ma adkaysan karaysaa. war maalinta dee meel kale wax ka dhacaan, koonfur wax ka dhacaan, maxaa waad musaysaan? miyaa baqaysaan? dee war ka hadla. ila gaalnimo ka harhsani ma jirte, gaalnimo lagu qabanayo oo la leeyahay muxuu ahayey hala gaaloobo, iyo diintii oo laleeyahay xurriyad buu haystaa qofkii lalama hadli karo oo la saxeexay. waxa ka dambeeyaa ka hadlaysaan maxay tahay? waxa ka weyni maanta ka hadlaysaan maxay tahay? waa la yidhi nin oday ahaa oo xaafadayada ahaa oo wadaad ah, ilaahay u naxariista, waa nin kaloo siyaasiya waa lixdamaadkii oo diinta xagga diinta laga xamanayay ayay isugu yimaadaan orientationka. markuu arko ninkan la xamanayaana waa ragga markaa xusbiyada wata, markaasuu dabeedna aayaddee ina aladiina kafaruu miidhan ya iyo qul liladiina kafaruu ayuunbuu usoo qaataan aayaadkii dee kufriga iyo gaalnimadii sheegayay dee waman yatawallahum minkum fa inahu minhum. waasuu soo qaatay. maalinta ma khudbadiyey wuxuu yidhi horta sheekh hebel diinta maaliga intay khusaysun buu ka yaqaanaa buuri. arshibliyo bixtiraamika sheekhu malow wa bixtiraamika dee annagu kitaabkiinu annagun yuu nagu soo jeedin sidii raadaalkii
bal xagganna meeshan gaalnimadii laga iclaamiyey bal xaggaan u jeediye bi waaye taasi waa taa waxaan ku darayaa cali wajiis iyo bashiir axmed salaad bashiir axmed salaad may ahayn ina maalin hore waan soo hadal qaaday maanta inaan soo hadal qaadan may ahayn waayo wax naga dhexeeyo oo muxuu ahaayey dee waalidnimo ah kaada almucallimu an yakuuna rasuulan laakiin waxaan kusoo hadal qaadaya kursigii culimadu fadhiya culamaa ulictisaam kursigooduu fadhiya kaasaan kusoo hadal qaadaya waa madax bashiirow meesha ka kac nimankii hiraabka isku ahayde dawladda madaxda ka ah waxay ka shaqaynayaan axmed madoobe sidee baynu usoo qoolaayo mudeni sidee baynu qadaad ugu qabsanaayo somalilan sidee baynu khalkhal u gelinaa ka shaqaynaya intay nagu soo maqnaayeen yaa hoostoodii laga shaqaystayoo sacdiya frimbi ayaa gool iyo 2 iyo 3 ba ka dhalisay macan waxaad yeelaysaa bal baraaruji xasan baraaruji kolley khayr badan ma laho waa nimankii aan garanaye oo diin waxba kama gelini bal baraaruji adiga intaasaan kaaga tegayaa macalinka cali wajiis waa min culamaai dawla had iyo jeer wuxuu garab taagan yahay xaqan wa bikayri xaqin dawladduu berber taagan yahay war dee maalin walba dawladda waxaa la yidhi wadaadadii hore wadaad ka mida iyo siyaad barri iyo ciidankaas wadaad u ha markay shirayaan shuuciyaddu ayay yidhahaan sheekh wilmeel saa loo yeedha aayad dabeedna dee muxuu ahaye dawladda ammaanaysa xadiis dawladda ammaanaya maalin walba intaasaa lagu qabaa sheekha yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu llaha wa adiicuu rasuula wa ulu lamri minkum wain ta'amara calaykum cabdun xabashi axaadiista ay aayaadkaasi usoo deliishadaa maalin walba inay dawladdu wanaagsan tahay waa nin inuu dee mithqaala kharda oo min iimaan uu ku jire maalinta mukhadiyaan istaagar maalin walba waxaan ilaahayba ma yaqaanin nimankan waxaanaad amaanaysaa oo lilan iyo markis baa ayay nimankaasi ka dhigteen muxuu ahaye qaa'id ka dhigteen waana ku gaaloobi waana soo kacay sheekh hebel uu soo kac wuxuu yidhi warama waxa ma haya buuri maanta oo waayo sheekh hebel oo anu maalin walba ma aayad kacaanka ammaanaysan helayaa buuri cali wajiisow maalin walba aayad iyo xadiis ammaanaysa dawladda heli mayside maanta intaad nin iska dhigto nimankan u jawaabo kufrigooda iyo gaalnimadooda u sheeg ugu dambeyn maxamed idriis sheekh maxamed idriis abtigaan kuna ina soomaaliyadaa ku dhashay dee aada iyo aadna soomaalidu waad ugu dhiiranta meeshii aad ka timi eritrea la odhan jirayna meel diin uga baahi badan la garan maayo abti waxaan ku leeyahay inanta cali salaabaana ku dhashay waa inan soomaaliyeed o abti waan ku leenahay soomaalida dhex u noqo reerkaagiina wa andir cashiirataka alaqrabiin yaa faadimata binta rasuulillaahi nebi maxamed intuu quraysh ka soo bilaabay inantiisii faadimuu soo gaadhsiiyey adiga oo ka hadlaya aan ku aragno markaasaanu is odhanayna waxaanu idin leeyda waa ka daacad ila reerkoodiiba waa kaala hadlay haddaad maalin walba laakiin soomaali saaraato abtiyaashaa nabadgeli hadda annagu cumuuman markaa kugu diidi mayno dadka inaad wacdido ee 100% adigoo aan xigaalkaaga diinta u baahan adaan juuq u ahayn waxaa ka socdan inaad og tahay soomaali una saaraan intaas ayaan halkaa kaga tegayaa tiriiko waxaad i weydiinaysa gudoomiye aad iyo aad baad mahadsan tahay gudoomiye aad iyo aad baad mahadsan tahay runtii xukuumadda baraarujin iyo eedeymo culusba waad u jeedisay maalin dhowto qoraal ayaa baraha bulshada aad ku baahisay aada leedahay madaxweyneha fariin ugu dirayso aad u dhigan madaxweyne dayntii waad ku dee wasiiro xula ayay u baahan tahay shacabku sidaynu ognahay xukuumadda intii ay joogtay muddo koobad bay ahayd laakiin waxqabad miisaan lana qudheeda waa qabato hadday qaramayn tahay hadday mashaariic tahay iyo heshiisyada qaarkood aada dhaliishaba u jeedisay waxaad ka waday siday dadku u fahmeen wasiirada inaad dhaliilayso aada leedahay dad u qalma xilalkan amaba hogaamintan ayuu madaxweynuhu cogtay bal arrintaa aada u faahfaahay marka hore ku qoslo qaar baa waxay yidhahdeen maxamed muraad xulu maaha
isagaa wax doonaya waxaan ku idhi nacas mey inaan horta doqon ahayn markhaatiga koobaad aanay isu furay faanba ha aha waayo waxaan garanayaa cabdiraxmaan iyo dawladdiisa manaad nabadgelin lamanaad shaqayn marka maxaa wax kaga doonaya anu hungureynayo nacas maaha waxaan uga jeeday dawladda cabdiraxmaan waa dawlad ururis ah ururis sida ururiska wataan idiin sheegi waxay ururis u tahay madax dhaqameeda la soo halgamay odayga oo fara badan baa mid walba inan buu gacanta soo qabto wuxuu yihi kan meelii geli markii hore dee aan waxaan u malaynaya inay heshiis ku haayeen inay aanay iska shaqaynayn dee wax loo celiyo dee tujaar aa garanaysaan iyo hebel iyo hebele ina rag bay gacanta soo qabto waxay dhahaan kanna meesha noo geli siyaasiyiintii la shaqaynayay iyo xusbiyadii la shaqaynayeen markii hore abay heshiis kula galeen dawladda in intaa laga siin doono saddexdaa qolo ayaa meesha ka buuxda marka inteebuu keenay madaxweynuhu waxa la diidi karayana maaha oo wax dee factia oo dhaba marka kuwan ka hadlayna waa kuwa haba la keenay cid kastaaba ha keentee hadday dee wax garanayaan ama qaanuunka garanayaan imika waad arkaysay wasiir dawladaha hoose wasiirka dawladaha hoose maalin dhowey baarasaabu gobolkiisii ku haystay xataa qaanuunka garan maayaan may akriyo waxaynu haysanaa waa wax ah waxaynu meel ku qoranay waa kaayo wax lamid a kaa iyo muxuu hayay ismaamulka gobollada iyo degmooyinka iyo gebigiisuba wasiirkaasi waxa uu wasiir ka yahay ismaamulka gobollada iyo degmooyinka xeerkaa la yidhahdo kaa keliya khuseeya waxay ishaysteen barasaabkii gobolka awdal barasaabka gobolka awdal isagaa madaxweyne kaa wasiir haba yaraatee aan wasiirka arrimaha gudaha ahayn oo uu ka amar qaadanayaa ma jiro midda kale indhala-aanta kale aynu la yaabay waxa weeye sarkaal wasaaradda arrimaha gudaha ka tirsan marka wax kaaga xidhmaan toos ulama hadli kartid toosna warqad uguma diri kartid waa inaad sii martaa wasiirkiisa iyo wasaaraddiisa aada sii martaa toos bay warqad ugu qorayaan barasaabadii waxaa samee dadkan ka hadlayaan waa dadkan ka hadlaya waa dadkii cambaaraynayay dagaaladii ka dhacay muxuu ahaa kilinka shanaad cambaaraynay ee waraqaa ka qorayay ee lahaa waa kan ee markii dambana intay isdaba galeen dabeedna qabtay muxuu ahaaye jigjiga qabtay ee la yidhi maxaa dalkayga idinka quseeya maxaa idinka galay ama hays xasuuqdo ama hays laysa etoobiya maxaa idinka quseeya ee markaa ay dee isku maarata isku nixin kuwan ka hadlaya waxa weeye guri laga furay jigjiga wasiirada halkan iska dabaya xadhiga ka soo jaray maxaa kaa galay imise wasiir baa israacay oo xadhiga ka soo jaray muxuu ahaaye meeshii la odhan jiray jigjiga hudheer nin ka furtay maxaa ka khuseeya maayarka jigjiga haddii xadhiga ka jaray maxaa kaa galay kuwan ka hadlaya waxa kuwii weeye xeer ciise ugu tegay diri dhaba ugu tegey ee iska soo fadhiistay ee soomaaliya ciise xaguu soomaaliya xaguu ka degaa soomaaliya degmadaas labadaa degmuu dagaaliyey ee say u fadhiyeen inta soomaaliya la kiciyoo la ciyaarsiiyey bartii lagaga tegey iyagoo aada moodo yacni daliiliin meesha ka yimi waa dadkaa meelay u socdaan iyo meelay ka socdaanba aan garanayn oon dadkan ka hadlay waa u naxaya cabdiraxmaan waa nin afgaaban waa nin dul badan waa nin aamus badan waa nin aan isleeyahay qadiyadda somalilan iyo lixijecladeedu way ku weynta laakiin haddii 30 gool la waraabay hareeraha kaa xigaan say kuugu soconaysaa dawladdaada taan ka hadlay taa imkana waan ku celcelinaya iska bedel baan leehay raggii kula soo halgamay ee xisbiga wadani ka tirsanaa ee aada garanayso hebel iyo hebel iyo hebel aada u garanayso ee maanta hareerahaaga taagan ee ka adag shaqooyinkana ay la ceerceerayaan nimankan odayaasha iyo muxuu ahaye ay keeneen madax dhaqameedka iyo ay keeneen muxuu xusbiyadu ama keeneen nimanka tujaarta ay keeneen waxaan isleeyahay kaaga aqoon badan lahay intaan sheegay sakaara isku dhaami lahayd saaxiib waa sakaara waqtiyadii u dambeeyey xukuumadda somalilan sida muuqatay amaba dadka baraha bulshada ama siyaasadda ka faallooda ay sheegayaan waxa la leeyahay ixtiraafkii somalilan qarka ayuu saaran yahay iminka maxaa iska bedelay xaggee uu maraya arrintaas horta dawladdeenu ictiraaf ma doonaysaa marka hore ictiraaf somalilan muxuu ahaye la ictiraafo horta dawladdu ma doonaysaa dee hadday doonayso may doonato
maraykanku iyo qarbigu iyagaa dantooda wata iyagaa dantooda ka arkay somalilan ayagaa arkaya marinkan yare halista ah dhuun gorayo weeye marinkan yari waa hunguri goraye inay muhiim u tahay inay bartaa fadhiistaan maanta tartanka adduunyada ka socday bariya galbeed markaa hadduu maraykan yahay iyo hadduu ingiriis yahay dantooday wataan laakiin dowladdeenu waxay taqaanaa jabuuti tag qadarna tag imaaraadkana soo yar shixaad qadar soo yar shixaad intaasay taqaana laakiin meesha laga xigo garan mayso ictiraafkana dee rag baa ka soo shaqeeyay ilaa siilaan yaa la soo waday muuse biixi baa waday oo dee tegey muxuuha maraykan tegey maanta maalin uu ka dhowyey la garan maayo laakiin dowladda ma garanaysa su-aashu waa taa ma ujeedaa hadday ujeedo ma warsangeli bay la heshiin lahayd oo dhan ay ku faan lahayd puntland baan heshiinin ma somaliland la heshiinaysa aragtay yaa ictiraaf doonaysa miyaan yaab ahayn ictiraafku meel dhow buu joogaa maanta ugu dhow yahay laakiin dowladdii doonan lahay maanta ima muuqato wasiirkeeda arrimaha dibaddu mee waa ninka websaydada ka hadlaya muxuuha watsaabada reeraha ka hadlayeele waxaan ka ashkateynay dowladdii maraykanka oo xamsi laasacaanood iman maayo dee wuxuu la hadlaya reerahood waan degdegayaa buu yidhi xamse waxaan ka ashkateynay maraykankiio oo maraykanku yidhi waxaan ka ashkateyn soo maahayn ma imanayo markaasaa meel walba lasoo dhigay wasiirada dee bar ka mid dee lacag bay bixiyeen oo dee lacagtaasay de ku wasiir ku noqdeen de oo dee contributionkii iyo muxuu ahaaye lacag uruurintii xisbiga ayay dee lacag badan bixiyeen markaasaa loogu abaalgudo dee inuu wasiir noqdo dee taan ka hadlayaa waa taase odayga waxaan leeyahay waa ku celcelinayaa waa raggaagi buu kula jooga raggii kaa saariraabaa kula jooga arduur baaba kula jooga oo halkan iska taagan iyaan lagu odhan muuse cabdalle oo nin wax kuu taraya kii qaylada badnaa imise halkan 20 xaafadaheenaabaa jooga halkan kiina raagay qaylada badnaa markii ugu dambeysay inaga tegay me waxba u tara uu qaylqayn laha ya siciidkii muxuu haaye siciidkiina sheekay darri weyn baa meesha jooga markaan waxaan odhan lahaa waa iska dareeri waxaan waa geelkiisa wax kuu tara doon siyaasiga muxuu haaye dhabtaa waxaa lagu yaqaano wuxuu raadsadaa dad sidaa ka fiican oo ka aqoon badan oo wax ku tara laakiin dictatorka dib u socodka waxaa lagu yaqaanaa midba midku ka sii daran yahay ayuunbuu u yeedhaan deedna wuxuubaa hadhow isla dumaan sidii cariish odayga lexejaalaa naga haysa somalilandtana lexejaalaa naga haysa nafyo maalba waanu gelinay inay duntiyo inay fadhiisato doon mayno cabdiraxmaan madaxweyne waxaanu kuula talinayna raggaaga maanta ku dul tuban ee aad ka tagtay ee kula soo halgamay ina ducaala boosme ducaala boos waa raggan khadiyaanka iska taagnay isaga iyo sakaaragi khadiyaanka iska taag xillay fadhiyaan raggan noocaasa wax sii wax u dhiib midaad agaasimo u dhiibto midaad meel yaro hoose u dhiibto kuu qayliya mid aad wasiirkii arrimaha dibadda u dhiibto oo wax kaaga soo tara xataa ninka maraykanka jooga ee wasaaradda muxuu ahaa arrimaha safiirkayno ah waa nin aqoon-yahan oo dee waqtigii kulmihii soo shaqeynay halay laakiin de ninka hadday reer noqonaysana dee wasiirka maanta jooga oo isku reer ninkaasaa wasiir arrimo dabadeed ku noqon karna anaga lexejaa naga hayso odayga waxaanu leenahay asturo waxaaga aada iyo aad baad mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa maxamed yuusuf cabdiraxmaan muraad siyaasi weyn oo ka tirsan jamhuuriyadda somalilan islamarkaana ka tirsan xisbigii hore ee talada dalka hayay ee kulmiye oo maanta nagu soo muuqday telefishinka sahan xaruntiisa amaba stuudiyiisa uu ku leeyahay gobolka togdheer gaar ahaana degmada burco ustaad aada iyo aad baad mahadsan tahay waan kaaga mahadnaqaynaa waqtigaaga qaaliga thank you